bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhawaada som IT tutorials iyo cashiradii sequelka cashirkii 28aad cashirkan waxaan kaga hadli doonaa self referencing relationship hore waxaan usoo qaadanay relationships database-ka one to one relationship, one to many relationship, many to many relationship. cashirkan laakiin waxaan ku arkaynaa relationship-ka la yiraahdo self referencing relationship. kahor inta aanan marka aan qorin programmiska ama aadan arkin si toos ah waxaan rabaa marka hore inaad fahantid concept ahaan self referencing relationship ka muxuu yahay. A self referencing relationship, also known as waxa sidoo kale loo yaqaanaa recursive relationship sidoo kale loo yaqaanaa ama self join ayaa sidoo kale loo yaqaanaa. wuxuu ka dhacaa marka occurs in the context of relational databases ka wuxuu ka dhacaa when a table marka table contains uu ku jiro foreign key that refers back kaasoo tixraacanayo primary key-ga of the same table ee isla table key. Normally programmada hore waxaan ku arki jirnay table-ka markii oo aan relationiska sameynaynay foreign key-ga waxaan ku dari jirnay table kadibna wuxuu tixraacanayay table kale foreign key-ga wuxuu tixraacanayay table kale laakiin hadda way ka duwan tahay self referencing relationship-ka foreign key-ga wuxuu tixraacanaa primary key-ga isla table-ka asaga lagu dhex qoray ayuu tixraacanaa marka. This type of relationship is prevalent. Relationship-ka noocan waxay inta badan ka dhacdaa ama caan ku tahay various real world scenarios tusaalooyinka nolosha guud caadiga ah sida hierarchical data structures-ka, organizational charts-ka ama parent child dependencies-ka waxyaabahaas ayay ka dhacdaa oo ujeedku uu yahay when an entity marka entity is related to itself oo isaga la isla xiriiro either directly si toos ah noqoto ama indirectly si aan toos ahayn noqoto. Okay, waxaan rabnaa marka tusaale inaan fahanno. For instance, consider an employee table. tusaale waxa usoo qaadataa employee table within a company's database oo ku dhex jira database-ka company-ga. wuxuu kaydinaa employees table-kaas information about each employee-ga, salary-gooda iyo muxuu ahaa other relevant data xogtooda employee-ga ayuu kaydinaa. One of the key aspects waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah organizational hierarchy-ga waxa la yiraahdo manager subordinate relationship, xiriirka ka dhaxeeya managerka iyo shaqaalaha. managerka iyo shaqaalaha meeshan marka instead of creating meeshii aad create garan lahayd a separate table gooni ah for managerska ee company-gaas meesha aad u create garan lahayd self referencing relationship waxay ka caawinaysaa inaad establish gareysid ama asaasid waxay ka caawinaysaa waxaa laga asaasi karaa marka self referencing relationship-ka within the employee table is the employee table-ka managerska table gooni looma sameynayo because managerka isaga naftirkiisa employee waa shaqaale waa saas daraadeeda waa in uu marka isla table-kii asagoo ku jira shaqaalaha kalena related uu la noqdaa asaga manager u ah. maxaa la sameynaa marka by adding waxaa lagu daraa marka tusaale ahaan oo kale manager ID ayaa waxaa ka dhiganaysaa foreign key-ga ee column ayaa ka dhiganaysaa wuxuu refers back wuxuu tixraacanaa marka employee ID-ga oo ah primary key-ga ee table-kaasi ayuu tixraacanaa. In this case marka employees-ka who are managerska employees-ka oo shaqaalaha ah waxa ay haystaan their own employee ID waxay u haystaan manager ID ahaan ay u haystaan. employees-ka who report to a manager employees-ka shaqaalaha loo yahayna waxay haystaan their corresponding managers employee ID-gooda ayay waxay ku haystaan ayagana manager ID-ga. shaqaalaha marka kaasoo managerka ah manager ID-giisa wuxuu noqonaa employee ID-giisa. shaqaalaha kaasoo managerska loo yahay ama manager muxuu ahaa ku xiran oo related kala ahna waxa ay manager ID-gooda u haystaan managerkaas employee ID-giisa. saas daraadeeda qaabkaasay related iskula tahay. Let's see marka aan aragno tusaale ahaan. Okay, waxaan create gareynaynaa marka haddaan bobsino hore u naqaano waxaan sidoo create gareeyo databaseska waxaan leenahay create table-kaas waxaan ka dhigaynaa employees table-kaas employees-ka waxaan leenahay waxa uu leeyahay ID oo ah primary key-ga midka aan ka dhigi doono integer aan leenahay wuxuu noqonaa primary key. sidoo kale wuxuu isku sameyn doonaa auto increment ayuu isku sameyn doonaa
column kale aan sameeynayo waxay tahay tusaalahan oo kale shaqaalaha first name kiisa kaasoo ka dhigayno varchar ilaa iyo 200 xuruf iska qaadanayna eedan ka bixino okay kabacdina waxaan leenahay not null empty ma noqon karo okay isla waxaan soo qaadanaynaa column kan ayaa sidoo kale soo qaadanaynaa waxaan leenahay kama aan asagana first name ka meesha aan ka dhigno last name aan ka dhigno labadan marka aan soo qaadano hadaad information kale ku dari karno tusaale ahaan oo kale waxaan ku dari karnaa oo kale salary ayaan ku dari karnaa kaasoo aan leenahay integer not asagana null empty ma noqon karo column-ka marka intaas aan dhameeyno oo xogta shaqaalaha intaan ku soo koobno waxaan leenahay manager id column aan sameeynaa marka manager column-kaas waxa ka dhigaa manager id gan waa integer manager id ga marka wuxuu noqonayaa leeyahay foreign key ayuu noqonayaa yaa noqonaya foreign key ga manager id ga foreign key gan yuu tixraacana marka references waxa uu tixraacana ansaxno references waxa uu tixraacana table-ka employees ka oo isaga la isla table kale ah employees na capital aan ka dhigno dabcan small normally capital da ka dhigtid waxa weyn maahan muxuu ahaa laakiin kaliya waxaan rabnaa in la kala fahmo table-ka employees ka ayuu tixraacana gaar ahaan column-kiisa id ga haddii aad fiirisid meeshan waxaan dhahnay manager id ga waa foreign key column-ka oo table-kan ku jira kaasoo relationship-ka tusinaya foreign key waaye manager id gan waxa uu references tixraacana isla table-kan uu ku dhex jiro ayuu tixraacana casharada hore waxaan ku arki jirnay table kale magaciisa meeshan ku qori jirnay laakiin hadda isla table-kan uu ku soo laabanaa column-kan id ga ayuu tixraacana marka saas daraadeeda sidoo kale waxaan raacin karnaa nidaamkii aad taqinay on delayed relationship-kan haddii table-kan iyo table-ka uu related-ka leeyahay la tirtiro maxaa ku dhacaya table-kan id ga haysto saas daraadeeda on delayed waxaa leenahay actionka waxaa ka dhigaynaa set null markaan ma tirtirayno waxaa leenahay on delayed set null sidaan marka aan sameyno table-kii xogtiisii waa dhameynay waxaan leenahay inoo create garay aan hubin comment inaysan la socon training command okay waxaan leenahay table-kan aan create garayno table-ka waa create garaynay inserting ayaan sameynaynaa marka xogtii inaan gelino inserting tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay insert self referencing .sql xog ayaan gelinaynaa xogtaan gelinaynaa marka qaabkee u gelinaynaa insertii qaabkee u sameynaynaa tusaale ahaan oo kale waxaan soo qaadanaynaa sida normalka caadiga insert into oo ah commandiga xogta daatada lagu geliyo table-ka employees-ka ayaan soo qaadanaynaa oo aan rabnaa inaan xog gelino table-ka employees-ka column-iska aan xogta gelinayna maxaa waa first name-ka iyo last name-ka iyo salary-ga iyo manager id ga kabacdi values-ka aan gelinayna maxay tahay marka values-ka aan xogtaan gelinayna waxa ay tahay tusaale ahaan oo kale employee-ga koowaad ama shaqaalaha koowaad waxaan ka dhigaynaa waxaan leenahay shaqaalahaas koowaadka waxa waa abdi tusaale ahaan oo kale magaciisa koowaad waxaan leenahay abdi magaca labaad waxaan iska dhahnaa tusaale ahaan oo kale ahmed okay marka aan first name-ka iyo last name-ka gelino waxaan sidoo kale u baahanaa inaan gelino salary-ga waxaan qaadanaynaa tusaale ahaan oo kale 50,000 kadib waxaan leenahay shaqaalahan ugu horeeyaan gelinaynaa waxaan ka dhigaynaa manager-ka ugu sareeya shirkadda saas daraadeeda manager id ma siinayno isaga null ayaan siinaynaa oo micnaheedu uu yahay isaga manager-kii ah meesha uu sareysay shaqaalaha kale imaanaya isaga ku soo xirmayaan hadda marka manager-adan way badan karaan ogow laakiin anaga hadda tusaale ka soo qaadana adiga hadhow manager soo isku xiri kartaa manager-kan shaqaalo muxuu ahaa u sii ah kanna wuxuu shaqaalaha u siiyaa isagana manageriska waa sameyn kartaa idan optionkaas laakiin hal tusaale aan ka soo qaadanaynaa hal manager iyo 3 shaqaale oo kale aan sameynaynaa labada shaqaale kale waxaan leenahay tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay magacyada hadaan gelgelino first name iyo last name hadaan gelino tusaale ahaan oo kale Ivan Musa iska gelinaynaa waxaan leenahay 20,000 mushaarkiisa yaa shaqaale u ah marka okay shaqaale waxa uu ah manager yaan u ahaan ka wadaa waxaa manager u ah shaqaalahan manager-kan ayaa shaqaale muxuu ahaa manager u ah saas daraadeed manager-kan waa id giisu wuxuu noqonaa 1 marka daatada aan gelinayno
because waxaan ognahay ID-ga marka aan sameynayna inaan dhahnay database-ka ID-ga waa integer primary key auto increment 1 ayuu ka bilaabanaa 2 3 xog kastoo la geliyo isaga automatic isku gelin doona inaga ma gelinayno saas daraadeeda marka kan 1 ayuu noqonaa saas daraadeeda waxaan leenahay Liban Muuse waxaa manager u ah Abdi Ahmed manager u ah comma xog kale ayaan gelinaynaa tusaalahan oo kale shaqaale kale ayaa xogtiisa gelinaynaa waxaan leenahay shaqaalaha kale xogtiisa gelinayno ka soo qaado kale waxaan leenahay Ali comma waxaan leenahay second name last name waxa ka dhigaynaa jaamac tusaalahan oo kale comma mushaarkan waxa ka dhigaynaa ka soo qaado kale asaga 20 kun iska sii waxaan leenahay comma isagana waxa manager u ah Abdi Ahmed ayaa manager u ah so sidaan marka aan dhahno semicolon ama semicolon kada comma isticmaashid ugu meesha error ku soo bixi doono marka xogta sii socoto ayaa comma isticmaali kartaa laakiin semicolon hada tiraahid meesha marka aad qaabka isticmaalaysid waa macnaheedu waxay tahay insertionka meesha ugu dambeeyay joogtaa waa so tusaalahan oo kale hal option oo kale ku dareenaaba hal shaqaale oo kale ku dareena waxaan leenahay shaqaalaha saddexaad tusaalahan oo kale Asha kadibna waxaan leenahay tusaalahan oo kale Ali kadibna comma kadibna waxaan siinaynaa 15000 ka soo qaado kale comma kadibna waxaan leenahay asagana iyadana waxa manager u ah Abdi Ahmed kana leenahay semicolon u doomarinayna marka sidaan ayaa insertion ku sameeynay intaan marka micnaheedu hadii aan gelino oo dhahno aan rang gareeno xogtii waxaan arkaynaa database-ka in la geliyay laakiin muhiimaddu waxay tahay inaad aragtid marka database joogtid muxuu ahaa query-ga tusaalahan oo kale query-ga waxaan leenahay self referencing sidee xogtan ku soo heli karnaa xogtii table-ku way ku jirtaa dabcan waa idin karnaa laakiin inaga inaan sameynaa rabnaa waxaan leenahay tusaalahan oo kale marka xogtii inaan aragnaa rabnaa select everything from employees marka hore ku bilaabeynaa waxaan arkaynaa xogta employees ku jirta select everything from employees xogtii oo dhan arkaynaa markaan select aan saxno select everything from aan dhahno employees sidaan marka aan sameeyno waxaan arkaynaa xogta employees-ka ku jirta ayaan arkaynaa meeshaan xogta table-ka employees-ka inoogu jirta ayaan arkaynaa tamaan kana aan sax dhahno meeshaan afar employees shaqaaleysiinay ama shirkadda ku jirta employee-gan ugu horeeya waa shaqaale laakiin waa manager wuxuu manager u yahay shaqaalahan kale ayuu manager u yahay isaga manager ID-giisa waa null saas daraadeeda Liban iyo Ali iyo Asha waxa manager u ah manager ID-gooda sa u jeedid waa 1 waxa wata Abdi Ahmed oo manager-ka ugu sareeya ah saas daraadeeda these three managers ka marka saddexdan manager waxay related leeyihiin Abdi Ahmed kaas ay related leeyihiin oo isku manager qaabkan marka waa marka qaabka xogta dhan ku arkaysid tusaale ahaan oo kale marka waxa jirto adigoo isticmaali kara qaabka tables-ka la isku join karay waxaan ognahay joining-ka inner joining left joining ina isticmaali karno meeshaan inner joining hore u soo baranay aadan fahansaneyn inner join maxay tahay left join hore u soo baranay so inner join-ta isticmaalina waxaan leenahay select everything from employees waa sidiise tusaalahan oo kale waxaan siinaynaa magacaan siinaynaa tusaalahan oo kale employee 1 ka dhigaynaa table-ka waxaan leenahay E1 u soo qaadanayna E1 marka u soo qaadano waxaan ku join gareynaynaa isla table-ki isagii ayaa xogtiisa isku join gareynaynaa waxaan leenahay employees-ka ayaa table-kan ku soo join gareynaysa isagana waxaan leenahay tusaalahan oo kale magac waxa u qaadanaynaa E2 kadibna waxaan leenahay on qaabka xogta la isugu join gareynayo maxay tahay hadii aadan fahmin waxaan sameeynayno hore aan shirana u soo sameeynay waxaan dhahnay select everything from employees table-ka employees-ka xogtiisa dhan ka soo qaado kadibna magacaan alias name ayaan u sameeyay E1 aan u qaatay employees-ka laba table aan rabaa inaan isku join gareeyo laakiin qiyaanada waxay tahay laba table qaabka la isugu join gareynayo hal table xogtiisii ayaa isaga laba table ahaan macnaha isugu join gareynayna qaabkii aad hore u soo barato kale laakiin meesha hal table la yaala table-kan employees-ka marka waxaan ku join gareynaynaa isagii xogtiisa ku soo xireynaa kadibna E1 iyo E2 oo kala bixinaa laba table related-ka marka qaabka related-ka la isku sameynayo joining-ka maxay tahay marka inner join waxaan ognahay marka related-kaas wixii related isla ah bis ay join gareynaysaa oo hal table-ka aga dhigaysaa oo ku tusaysaa tusaale ahaan oo kale waxaan leenahay xogta table-ka E1 hadii manager ID-giisa table tusaale ahaan oo kale E1
haddii manager ID-giisa uu la mid noqdo E2 dot ID-giisa intaan ayaan kusoo join garaynaynaa. sidaan marka aad samaysid waxaa ku soo bixi doono xogta laga soo bixiyay employee 1 ayaa laga soo reebi doonaa. waxaa arki doontaa Liibaan iyo Ali iyo Asha saddexdan xog ayaa arki doontaa. sababta employee 1 ka loo bixiyay mataqaanaa employee 1 ka waxa loo bixiyay waxaa tiri waxaad soo qaadataa xogta employeeska. E1 ka waa employeeska xogtiisa, E2 dana waa employeeska isla isaga leeyahay laakiin laba mar muxuu ahaa la soo qaadanaa in joining la isku sameeyo. inner join maxay sameynaysaa marka E1 kan iyo waxay isku join gareynaysaa E2 da oo isla table-kii waa laakiin laba table oo kala dhigaysaa oo isku join gareynaysaa maadaama relation meesha uu yaalo. qaabka la isku join gareynayo waa qaabkan. waxay leedahay haddii E1 employeeska E1 column-kiisa manager ID-ga hadduu la mid noqdo E2 da column-kiisa ID-ga hadduu la mid noqdo xogtaas waa la soo qaadanaa. yaa laga soo tagay employee-ga waxaa laga soo tagay waxaan arkaynaa employee-ga ID-giisa uu yahay manager ID-giisa uu yahay null oo manager-ka ah because isaga manager ID-giisa waa null oo laba mid ahan E2 da ID-geeda laba mid ahan oo null laba mid noqon karo ID. saas daraadeeda waxaa laga soo tagay employee-ga ugu horeeyay oo manager ID-giisa uu yahay null. qaabkan inner join-ka marka la isku sameeyay xogta soo baxda waa tan marka. waxaan arkaynaa saddex shaqaale. saddexdan shaqaale manager ID-gooda waa 1. E2 da oo muxuu ahaa ID-ga saa u jeedid 1 ayaa lagu muxuu ahaa related gareeyay xogta inner join-ka. yaa manager u ah saddexdooda waxaa manager u ah saa u jeedid table-ka kale la soo qaatay maxay tahay isla xogtii related-ka la ahayd oo ah employee 1 ka ah ayaa lagu soo daba xiray because inner join-ka markaa sameynaysid laba table xogtooda isku soo xiraysaa. saas daraadeeda Abdi oo saddex mar meeshan la soo celiya arkaynaa. Abdiga manager ID-giisana muxuu yahay waa null. qaabka marka qaabka query-ga u sameyn kartid oo marka aad rabtid inaad xogta joining isku sameysid. hore waxaan u soo isticmaali jirnay table kala duwan. joining-ka ogow joining-ka muhiim waa inner join iyo left join wax ina fahantid labadoodaba ina fahantid kul ina fahantid muhiim waa because for example marka aad sameynaysid application-kaasi database-ka hal table xogta kuma store gareysna meelo kala duwan ay ku store gareysan tahay. saas daraadeed inner join-ka iyo left join-ka waxay ka saacidaysaa xogtii in table kala duwan inta la soo qaato la isku soo gareeyo bam application-ka la soo saaro. qaabka marka inner join-ka amaanta u isticmaalayna maxay tahay self referencing anagoo isticmaalayna inner join-ka isticmaalayna. inner join-ka muxuu yahay table ayaa xogtiisa table-ka isla table-kii ayaan isku join gareynaynaa kaliya laakiin maxay tahay qaabka la isku join gareynayo wixii manager ID-ga uu la mid noqdo employee 2 ga ID-geeda oo ah wixii related isla ah in joining la isku sameeyo. qaabka related ku wixii aan isla ahayn laga soo tago inner join-ka marka isticmaalayso waa qaabkaas marka. ugu marka self referencing waa qaabkaas waa table xog ayada istixraacanayso haddaan muxuu ahaa tusaalihii ugu dambeeyay tuso self referencing marka waa ka relationship-ka ama recursive relationship-ka ama self join-ka wax loo yaqaan iyada waa foreign key-ga table-kaas ku jira ayaa wuxuu tixraacanaa primary key-ga isla table-kaas ayuu tixraacanaa relationship-kaas waxaa la dhahaa self referencing relationship. I hope marka inaad fahanteen tusaalooyinka waa sii badin kartaa adiga oo kasii sameyn karo manager badan sii sameey manager oo mid manager uga dhig ama group of employees-ka hal manager u sameey group of employees hal manager u sameey labadaas manager-na hal manager ku guud ay ku xiran yihiin ka dhig waa sameyn kartaa iyadana waa ku sii practice gareyn kartaa. cashirka meesha ku sameynaa cashirka xiga inoo balan billahi tawfiiq.